xiriiriyana waxa ugu muhiimsan ee hemorrhage-kaas lala xiriiriyana waxa waaye injuries oo veinskii oo pelviska ah. sidaa daraaddeed vesselska meesha ku jira laga soo bilaabo common iliac artery-ga iyo common iliac vein-ka, branchiskii internal iliac artery-ga iyo tributaries-kii internal iliac vein-ka, iyo external iliac branchiskiisaan hoose ee inguinal ligamentkii kasoo gudbayay si ay femoral iyo wax lamid u noqdaan. dhammaan structuradaas waxay risk ugu jiraan haddii lafaha pelviska ay jabaan, fracturekaasna displacement uu sameeyo, in ay dhaawacmaan. nasiib wanaag 10% ka yar ayaa arterial injury lala xiriiriyaa. arteriga ugu badan ee arki doonana waxa waaye superior gluteal vesselska, laakiin inta kaleeto pelvic fracturada displacement haddii ay sameeyaan visual levelka sacroiliac jointiga sida ay ujeedaan branchiska internal iliac vein-ka iyo branchiska kaloo yaryar oo meesha soo galayo ayaa dhaawacmi kara. marka lafahan waxay close relationship la leeyihiin vesselskana way dhaawacmi karaan, and that's why 90% of pelvic fracturada unstable-ka ah venous bleeding loola xiriiriyo. epidemiology haddaan ku bilaabno oo anatomiga aan kasoo gudubno, stadigan oo kamid ah stadiyada ugu classicsan marka lasoo xiganayo epidemiologyga pelvic fractureka oo Australia laga sameeyey, bukaano tiro badanna la baarayay. waxaa soo xiganaya in overall prevalencyga skeletal injuries marka la fiiriyo ay pelviska ay yihiin approximately 2 to 8%. meelaha qaar wuu ka badan yahay marka, laakiin overallku waa 2 to 8%. pelvic injurieska waxay ka imaan karaan both low energy iyo high energy trauma mechanism of injury-ga. remember bukaanada young age-ka tusaale u dhexeeya 10 sano ilaa 40 sano young adultska loo yaqaano, waxa ugu badan ee fracturekooda keeno waa high energy trauma. high energy trauma waxaan ula jeednaa road traffic accidentska, shilalka gawaarida, mootada, falliska oo significant height laga dhaco, iyo crash injurieska kaleeto. dadka ugu badan ee marka injurieskan ay saameynayaan waa dad 40 sano ka yar. low energy trauma way ka imaan kartaa, laakiin frequency-gooda ma badno, waxaana ay ku badan yihiin dadka elderly-ga. badanaana fractureskaas waa isolated injuries sida pubic rami, scale rami, iyo isolated injuries, so most of the time conservative treatment lagu xaliyo. remember overall mortality-ga pelvic fractureka bukaanka jaban waa 15%. mortality-gana waxay ku xiran tahay ma close injury-a, ma open fracture pelvic fracture mase fracture oo bleeding leh waaye. waxa ugu daran waa pelvic fracture oo vascular injury ay la socoto, overall mortality-giisa waa 58%. laakiin fracture stable ah ama unstable ah laakiin close injury mortality-giisa average 17%. marka waxyaabo badan oo assessmentiga iyo aan ku arki doono iyo barameterada marka assessmentiga la sameynayo aan ku kala ogaan doonaa which fracture ayaa unstable, which fracture ayaa stable. laakiin xasuusnaada bukaanada open pelvic fractureka qaba waa kuwa ugu badan oo highest mortality leh, laakiin overall mortality waa 10 to 16%. mortality marka laga hadlayo bukaanadan pelvic fracturada, remember 50% ka badan kalabar bukaanada waxa ay leeyihiin associated injuries. associated injurieskaasna waxay qayb ka qaadanayaan mortality-ga badan. remember polytrauma patients maadaama bukaankan pelviga keliya uusan ka jabnaan uu leeyahay extremity fracture, probably head injury, probably abdominal thoracic injuries kaleeto uu leeyahay. bukaanadaas polytraumada ah waxa ay early hourska ama saacadaha ugu horeeya ama daqiiqadaha ugu horeeya most of them ay u dhimanayaan wax loo yaqaano wax la xiriiro airway-ga ama hemorrhage la xiriiro. bukaanada late gadaal dambeeto haddii ay survive garoobaan ee hemorrhage iyo close injury wax lamida head injury wax lamida aysan ku dhicinna waxay u dhiman karaan organ failure iyo sepsis. marka mortality-ga waa by micnaha modal early hourska ama early death waxaa lala xiriiriyaa severe close head injury ama hemorrhage oo ku dhaca either pelviska ka imaanaya thoracic ama ka imaanayo abdominal major vesselska injury u gaaraya. bukaanka haddii uu survive garoobo initial impact-iga uu ka badbaado, waxyaabaha uu dhiman kara later on waxaa kamid ah infection, sepsis iyo multiple organ failure.
marka remember bukaanka pelvic fracture-ka ee high energy traumada mechanismkiisu uu yahay foxka initial periodka marka isbitaalka la keeno waa in la badbaadiyo oo laga badbaadiyo waxyaabihii immediately u dhiman kari lahaa. waxyaabahaas waxaa ugu daran bleeding, ha ahaado bleeding pelviska ka imaanayo, bleeding ka imaanayo extremity-ga, bleeding ka imaanayo cavitiska gudaha sida thoraciska, abdomenka, ama even intracranial injuries iyo wax lamid ah. Okay, mortality-gii aan dhahnay waa 10 to 16% all fractureskii unstable-ka ahaa way wada leeyihiin, laakiin fracturada ugu badan ee lala xiriiriyo dhimashada ama bleedingka iyo associated injurieska, morbidity, mortality labadaba waa classificationka gadaal dambaan ka arki doonaa, waa lateral compression type 3 iyo anteroposterior compression type 2 iyo type 3. sidoo kaleeto fracturada vertical shear nooca la dhaho iyo combination typeka sida ABC type 2, ABC type 3 ay la socoto vertical shear ama vertical shear ay la socoto LC type 3 oo kaleeto waa fracturada lala xiriiriyo abdominal injury, urologic injury ama vascular injury. marka mortality-gaas aan ka hadlayno bukaanada leh oo dhimanayo ama communicationadooda ay badan tahay, remember waa bukaanada fractureskooda unstable yihiin. fracturada ugu badan ee unstable pattern-kane waa 3 ama 4 meesha ku qoran. Okay, so basic epidemiology anatomy haddii aan kasoo tagno, how do we approach bukaan emergency-ga la keeno? remember 2 case aan isticmaali doonaa at the end of the lecture. 2 case mid kamid a sawirkan waaye, labadoodana waa 2 case during my training isoo maray. bukaanka markuu emergency-ga uu imaado as an orthopedic surgeon iyo as qof xubinka ah trauma teamkii, maxaa loo sameynaa? sideen waasas garaynaynaa? sidee loo resuscitate garaynaa? what kind of imaging ama pelvic stabilization ayaa loo sameynaa? remember overall objectiveka bukaanka markii emergency-ga la keeno oo pelvic fracture-ka uu leeyahay, objectiveka koowaad waxa ay tahay in bukaanka la badbaadiyo. it's not the limb, it's not disability wax lamid in laga hortago, laakiin factorka koowaad ama objectiveka koowaad ee focuska la saarayo waa in bukaanka nafsadiisa la badbaadiyo. yes, disability-gii iyo limbigii way imaanayaan, laakiin waxay imaanayaan after resuscitation, after bukaankii uu ku nool yahay. so maxaa loo baahan yahay marka? what kind of assessment aan sameynayna? any patient oo polytrauma, remember 50% of pelvic fractures bukaanada iskale, gaar ahaan bukaanada unstable fracturada iska lahan, fracturadooda waxaa la socda associated injuries. so means bukaanadan majoritygooda ama kala bar ka badan waa polytrauma. so any patient oo traumatic injury uu gaaro, principalka assessmentigiisa waa ATLS. waxyaaba specifiga oo pelviska la xiriir waa sheegi doonaa, laakiin no matter inuu pelvic yahay, no matter inuu extremity injury, abdominal iyo thoracic injury uu yahay, polytrauma ma yahay ama traumatic injury bukaankan ma yahay, principalkii primary survey, secondary survey, reassessment, resuscitation, imaging iyo definitive treatment ayuu bukaanka maraa. ABCDEFGHI ka soko, remember bukaanadan pelvic fracture-ka ah kuwa mortality-gooda badan tahay waa kuwa bleeding-ka leh. that's why aan u highlight gareeyay C-da. so any patient pelvic fracture leh, no matter inuu yahay bleedingkiisa mid external iyo mid internal, waxaan focus ka saari doonaa qaybta circulation-ka. bleedingkaas uu yahay external, during assessment waa inaan fiirinaa wax bleeding muu leeyahay. haddii uu yahay wax internalane, maxaa la dhahaa, hemodynamic statuska bukaanka markii aan aragno ama raajada markaan aragno ayaan qiyaasi karnaa in internal bleeding uu jiray in kaleeto, whether from the pelvis or from any other cavity. marka ATLS principleski kuma daahayo. remember assessmentiga not only orthopedic surgeon kamahan qofka bukaanka assess garaynayo, bukaanka remember waa polytrauma kasoo kow extremity iyo pelvic injuries inuu leeyahay. bukaanadan badankooda waxay leeyihiin thoracic injuries, waxay leeyihiin abdominal injuries, waxay leeyihiin urological injuries, waxay leeyihiin reproductive organ injuries ama neurosurgical issues ay leeyihiin. sidaa daraadeed marka trauma team iyo teamwork wax u baahan waayo. it's not only individual maxaa la dhahaa surgeon wax uu assess garaynayo uu kulligood manage garaynayo,
marka teamwork muhiimad gooniya ayay leedahay bukaanada polytraumada. How do you assess the pelvis? Specific examinationka pelviska loo sameynayo iyo waxyaabaha lagu ogaanayo pelvic instability inay jirto iyo waxa ay ku tilmaamayaan waa arki doonaa. Remember, examinationka waxaa ku jira neurological assessment, ha ahaato sensory iyo motor examination. Okay, remember bukaanka markuu emergency-ga imaado oo primary survey-gii, airway-gii, C-spine immobilizationkii, breathing-kii iyo ventilation-ka, circulation-kii, whether external bleeding iyo internal bleeding in la rule out gareeyo, kadibna immediate intervention loo sameeyo, ka soko waxyaabihii ABCDE-ga loo sameynayo, focus examination-ka pelviska iyo musculoskeletal examination-ka la sameynayo waxaa qayb ka ah in pelvic stability-ga la fiiriyo iyadoo gentle pressure la saarayo labada dhinac ee pelviska, gaar ahaan anterior superior iliac spine-ka gentle pressure hoos loo riixayo. Maxaa la fiirinayaa? waxaa la fiirinaya in one side of the pelvis uu dhaqaaqayo ama labadooda ay dhaqaaqayaan. Remember, pelviska haddii uu dhaqaaqo uma baahnid inaad ku celisid, waxaa la dhahaa movementigii mar labaad aad dib u assess garaysid, because every time oo aad dhaqaajisid fractured fragmentiskii sida sawirkan left sacroiliac joint ka muuqato waxay dhaqdhaqaajiskaas aad sameynaysid disruption ku sameyn karaan clot formationkii, waxay furi karaan ama dhaawac gaarsiin karaan vasculature-kii meesha ku jiray sida internal iliac artery iyo vein brancheskoodii. haddii bukaanka conscious uu yahay wuxuu dareemi karaa dhaqdhaqaaqaas markaa dhamaysid tenderness, sidaa daraadeed pelvis oo markii gentle pressure from sideska looga sameeyo oo dhaqaaqo at the same time bukaanka haddii uu soo jeedo uu xanuun uu dareemayo waa one of the classic maxaa la indicatorska uu tilmaamayo unstable pelvis. Remember, assessmentiga aan sheegayno wax first few minutes bukaanka internarsiga cannula sii surayso, IV line-kii fluidka sii siinayso, dhakhtarkiina assessmentigan uu sii sameynaya. So immediately waxyaabaha bilowga hore aad ku ogaa kartid this stable pelvis mase unstable pelvis waxaa kamid ah examination-kan oo manual gentle pressure ah sideka pelviska uga sameynaysid, haddii uu dhaqaaqana immediately aad go'aansanaysid inuu uu yahay stable pelvis, bukaankana probably hemodynamically unstable uu noqon doono, aggressive resuscitation aa u baahan tahay. waxyaabaha kaleeto lagu ogaan karo in fracture-kan uu daran yahay ama uu displacement uu sameeyey ama pelviska unstable uu yahay waxaa kamid ah asymmetry haddii ay jirto oo tusaale ahaan one side oo labadii lower limb ay gaaban tahay ama lugtii externally rotated ee tahay ama shapekeedii any abnormal position uu yahay. Remember, haddii aad aragtid hematoma, contusion, abrasion ama open wound oo kan ugu weynaa aad ku aragtid areada perineumka, genitaliada, scrotumka ilaa iyo buttocks-ka waxay tilmaamaysaa severe soft tissue. Remember, laftan gudaha jirto waxaa kasoo koreeya soft tissue-ga, degreega soft tissue injury-gana wuxuu ka tarjumaa degreega bony injury-ga. The higher you see soft tissue damage means bony destruction daranna gudaha ayay ku jirtaa sida classic ah ku naqaano pilon iyo tibial plateau fracture-ada oo kaleeto. Remember, marka haddaa saddexdaas calaamadood iyo kuwa kale aan raaciyey aa aragtid waxay tilmaamaysaa unstable pelvis. maxaa xal ah? bukaankii initially waxyaabihii aasaasiga ah emergency-ga markii la keenay waa asas garaynay quick examination waxaa aragnay unstable inuu yahay. So what is the approach to any patient who presents with unstable pelvic fracture? Remember, waxaan ka hadlaynaa close injury. Open injury hadduu yahay principleski open-ka ahaa sida antibioticadii in la siiyo, IND la sameeyo, close maxaa la lahaa as early as possible woundkaas la xiro mar walbeeto way jiraysaa. laakiin bukaanka hadduu yahay close pelvic fracture hemodynamically unstable yahay maxaa loo sameynaa? Kow, sidii ha iloobin circulation-kii. Remember, haddii uu jiro any open wound ama any external bleeding, haddii uu jiro isku day bleedingkaas inay joojisid by direct compression ama backing. sawirka case-ka aan soo qaatay oo gadaal dambe ama labaad kusoo celin doono waxaa arki doonaa inuu right groin area inguinal area uu ku leeyahay large open wound. saa daraadeed emergency-ga markii koo la keeno haddaysan paramedicadii ama dadkii aysan keenin waxaa la dhahaa wax koowaad waa sameynaysa waxay tahay backing iyo inaad nabarkada dabuushid.
okay. Waxyaabaha asaasiga ah oo loo sameeyo waxaa ka mid ah IV line, establish large IV, maxaa la dhahaa cannula, kadibna ugu yaraan 1 litir ilaa 2 litir oo fluid sii bukaanka immediately markuu ku imaado haddii vitaliskiisii gaar ahaan BB-gii, systolic blood pressure-kii less than 90 uu yahay, tachycardia uu yahay, bukaankii later on hypothermic uu noqon doonaa, laakiin waxyaabo kaleeto oo ay kamid yihiin acid base balance sida lactate-kii deranged ay yihiin, remember bukaankaas waa bukaan shock kaaga jira, sidaa daraadeed wuxuu u baahan yahay early transfusion. Latest ATLS protocolkana wuxuu dhahaa 1 litir bukaanka haddii la siiyo of crystalloid solution, hadduu response bixin waayo early transfusion ayaa loo sameynaa. Then transfusionkii waxyaabahaas inta ay sii socdaan, remember waxaan ka sheekeynayno dhan wax simultaneous u wada dhacayo waaye, wax step by step oo isku xiga maahan. Any patient oo pelvic fracture leh waxaa la recommend gareeyaa from the site uu dhaawaca ku gaaray ambulance markay soo qaadayso in ay u xirto pelvic binder. Remember pelvic binderka wuxuu noqon karaa mid commercial ama wuxuu noqon karaa pelvic sheet, goc caadi uu noqon karaa. Haddii aan loo soo xirin bukaankan sida Soomaaliya, of course ambulancedeena waxaas ma yaqaanaan, bukaanka emergency markii loo keeno unstable pelvis clinically markaa assess garaysid haddii uu yahay inta cannula loo sii surayo, fluidka lagu sii xiraayo, dhakhtarkii iyo tiimkii traumada waxay u baahan yihiin inay pelvic binder u xiraan. Very importantly, binderkan waxa uu qabanaa, wuxuu yareynaa volumekii pelviska, waxa uu joojinaa fracture fragmentskii dhaqdhaqaaqi lahaa, waxa uuna caawinaa clotkii inay samaysmato. Sidaa daraadeed pelvic binderka waa simple easy technique la ogaaday in uu yareynayo hemorrhage-ka iyo ongoing bleeding. Sidaa daraadeed wuxuu ka mid yahay initial resuscitation measureska loo sameeyo any patient oo pelvic fracture qabo. So bukaankii waa la keenay emergency-ga, waxyaabihii essentialka waa loo sameeyey, fluid waa lagu xiray, haddii uu hemodynamically unstable ahaa early transfusion loo bilaabay, wax external bleeding haddii ay jireen ama obvious bleeding waxaa la sameeyey, waa la compress gareeyay, backina loo sameeyey. Pelviskii waxaa lagu xiray, remember weli raajo lama saaray, ma ogin inuu ABC type yahay, inuu nuuc kale yahay, laakiin no matter nuucuu yahay pelviska unstable ma yahay, ahaa simply pelvic sheetkii ama binderkii aa lagu xiray. Intaas markii loo sameeyo bukaankii haddii aa awoodid in qolkii raajada sida isbitaalada setupka qaarkood ay haystaan qolkii emergency-ga raajo mobile lagu saaro, better in markaas AB X-ray oo pelviska la saaro, si at least clue u heshid what type of injury, what type of fracture, then usii ogaatid maxaa la dhahaa possible associated injurieska iyo resuscitation measureska u baahan tahay inaad sii samaysid. So inta hore markii la sameeyo you reassess the patient, bukaanka markaa reassessment u samaysidna waxa ku xigo u samaynaysid waxa waaye maxaa la dhahaa AB pelvic X-ray. Okay, pelvic binderka si loo xiraa classic technique oo ay sameeyeen studygan Mareykanka laga sameeyey lagu soo bandhigayo, waxay isticmaali kartaa either commercial binder ama waxay isticmaali kartaa sheet go caadiya, goyaasha cadaanka ama any maro haysatid. Military-go kale waxay isticmaalaan saraawiil caadi oo adag jeniska noocooda kale iyo wax lamida, anything oo compress gareyn karo pelvic volumekii ayaa loo isticmaali karaa. Midka commonly la isticmaalo technique-gan sida saxda ah ee la rabo waxa waaye in levelka greater trochonterka centerka sheetka uu ahaado. Remember haddii ay go-aaga kor uu jiro, caloosha qaybteeda koreeti iyo umbilicuska iyo kor uu jiro, it's not sidii la rabo uma celinayso. Haddii dhankan lugaha iyo hoos uu soo jirana pelviskii sidii la rabo uma celinayo. Sidaa daraadeed sida sawirka labaad ee lateralka bukaanka u jiifa ujeedaan, centerka go-a wuxuu ku aadan yahay ama sheetka wuxuu ku aadan yahay at the level of the greater trochonter. Okay, remember bukaanka shaqadan waxaa loogu qabanayo waa emergency roomkii. Sidaa ujeedaan madaxa kore ee bukaanka tima resuscitation sameynayo, intubation ama waxyaabo kale u sameynayo, qaybta hoose open woundskii extremities ku yaala qolaa kalaa ka shaqeynayso. At the same time trauma surgeonkiina wuxuu sameynayaa pelvigii ayuu compress gareynaa. Labada raajo hoose midda midigta ah clamps-ka ku xiran yihiin, maana midda kale waxa ay muujinaysaa
widening of the pubic symphysis ABView oo pelvic x-ray waa midda kaleetana waxay muujinaysaa markii pelvic binderka lagu xiray in spacekii pelviskii volumekii uu yaraaday. So not only in ay wax ku immobilize garaynayso laakiin waxay sidoo kale yaraynaysaa pelvic volumekii taas oo spacekii bleedingka badan uu ka dhici lahaa soo yaraynayso. Remember waxyaabaha pelviska lagu stabilize garayo labada horeeto pelvic sheetkii pelvic binderka waa simplest wayska ama techniqueska laakiin waxaa la isticmaali karaa external fixator c-clamps iyo kuwa kale laakiin kuwaas waxay u baahan yihiin as damage control surgery ahaan in bukaanka saalada la geeyo tiimka general surgeryga lacala hadday shaqo kasii qabsanayaan oo kale intay is diyaarinayaan quick maxaa la dhahaa external fixator lagu xiro laakiin classically sida algorithmada ugu caansan bolitolomada la isticmaalo from teamkan Denver protocol wax loo yaqaano ay soo saareen waa pelvic sheet ama pelvic binder ayagaana fudud ayagaana less time qaadanayo lana ogaaday in ay yareeyaan mortality rateka bukaanada. Okay, bukaankii waxaan u sameynay waxaa la dhahaa resuscitationkii pelvic binderkii aan ku xidhnay raajadii aan saarnay jabkii aan aragnay. What's next? Remember intaas waxaan u sameynay ujeedkii hore aan sameyn waxay ahayd in bukaankii fluidkii ama hemorrhagekii uu dhacay inay replacement u sameyno at the same time waxaan u baahannahay inaan bukaanka haddii uu hypothermic u ahaa si aan uga hortagno triadkii oo maxaa la dhahaa coagulopathiga in aan warm garayno bukaanka pelviskiina waa stabilize gareen intaas marka aan sameyno bukaanka haddii uu stable yahay oo falilahi alxamd bukaankaas waa la admit garaynaa haddii fracturekiisa uu unstable uu yahay bukaankii laakiin hemodynamically stable uu yahay father imaging aan la sameynaa father imaging waxaan ka wadnaa markii hore ab pelvis caadiya la sameeyey inlet outletkii iyo CT-gii iyo 3D CT-gii haddii waxyaabo kaloo dheeriyey sida abdominal ama chest and so on wax kale uu u baahan yahay ayagana waa loo sii diraa haddii bukaanka intaas loo sameeyana bukaankiina weli hemodynamically stable uu ku yahay definitive managementiga ama internal fixation ha noqoto oo pelviskiya ama ha noqoto internal fixation associated injurieskii la socday ama laparotomy waxyaaba kale ha noqoto damageka jirtay ayaa la xalina haddii bukaanka anagoo resuscitation u sameynay early transfusion u sameynay pelvic binderkii ku xirnay weli unstable uu yahay maxaa xala weli unstable waxaan ula jeednaa bukaankaas hemodynamically vitaliskiisii systolic blood pressurekii weli yar waxaan ka wadnaa yaraanshaha waxaa protocolka algorithmkan ay sheegaysaa bukaanka waa in at least 2 liter oo la siiyaa crystalloid solutiona at least 2 unit oo bladana la siiyaa haddii bukaankii intaas loo sameeyey uu weli hypotensive yahay weli tachycardic yahay weli hypothermic yahay weli lactatekiisii abnormal uu yahay weli plateletskiisii iyo maxaa la dhahaa variableskii kaleete ay stable borderline iyo unstable lagu cabirayay ay deranged ay yihiin bukaankaas wuxuu u baahan yahay in la fiiriyo intay cilada ka jirtaa kow waxaan u baahannahay pelvic meesha koowaad oo bleedingka oo la tuhmayay any patient oo pelvic fracture kasoo kow other injurieska kaleete ee bleedingka uu ka imaanaya pelviska ahayd bukaankaas unstableka ah waxa kuwaada u baantay inay cagajiiso waxay tahay pelvic binderkii makuu xiran yahay horto si fiican makuugu xiran yahay si sax makuugu xiran yahay haa haddii ay tahay kadib waxaa u baahan tahay intee ayuu bukaanka wax ka beerdareynayaa ma thoraxku wax ka beerdareynayaa ma abdominal injuries ay jira sida liverkii spleenki iyo solid organiskii kaleeto like kilida oo kale iyo wax lamida intee cilada ka jirtaa sidee u ogaanaynaa other associated injuries haddii uu jiro emergencies-ka waxyaabaha lagu sameeyo waxaa ka mid a fast assessmentigii ama diagnostic peritoneal lavageka so bukaanka haddii uu positive uu yahay that means cilada waxay ka jirtaa abdomankii ama thoraxiska haddii hemothorax ay jirto chest tubekii wixii loo sameynaa haddii abdomanka ay jirtane oo tusaale ahaan la arko lacerations ama active bleeding spleenkii wax lamida ka jiro bukaankaas emergency laparotomy ayaa loo sameynaa ama exploration laparotomy si any injury u jiro bukaanka haddii loo sameeyo
asigoo unstable ah, pelvic binderkii kugu xiran yahay, weli vitaliskiisii bb ugu horeeya systoligii uu less than 90 yahay, bukaankiina belviskii maxaa la lahaa ab belvisk markii aa samaysay aa aragtay fracturekiina uu ku celinayo pelvic sheetkii ama binderkii, other associated injury oo caloosha ama thoraciska ka imaanayana markaa father examination aa samaysay aa aragtay inuusan wax active bleeding aysan jirin, bukaankiina deranged uu weli u yahay, markaas waxay noqonaya in father imaging aa samaysid. Imagine bukaankii waxaa samaysay calooshii aa aragtay nadiif waaye, wax active bleeding solid organiska ka socda ma jiro, first examkii negative waaye, belviskii kugu xiran yahay pelvic sheetkii ama binderkii, laakiin bukaanka weli hemodynamically unstable waaye. maxaa xal ah? markaas waxay noqonaysaa in laga fikiro 10%. Remember, pelvic fracturada 80% bleedingka ka imaado waa venous bleedingkaasna 80% waxaa ku filan compression oo pelvic sheetka ama binderka uu ku sameeyo iyo initial resuscitationka, bukaanada badankoodana way ku fiicnaadaan. Think about marka ama bukaanka aan intaas hore aan u samaynay hadduu weli roonaa waayo caloosha ama active bleeding meel kale ka socdana aysan jirin, ama arterial bleeding uu leeyahay, way adag tahay compressionka binderka iyo wax yararku la samaynayo in ay arterial bleeding ay istaajiso. sidaa daraadeed bukaanka haddii uu saas u yahay, waxa ugu horeeya ee la recommend gareeya waa CT angiography. CT angiography haddii intii la saaro la arko bleeding inuu jirana, xalka waxay noqonaysaa in la furo, laba midkoodna loo sameeyo haddii aan la furaynin. sida fudud waa periperitoneal backing, in large gauze ama abdominal gauze sida aan u naqaano maxaa la dhahaa backing pelviskii loogu sameeyo sida sawirkan ka muuqata, ama haddii la helayo embolization oo kaleeto vesselskii by embolization la xiro. Remember, studyada waxay sheegayaan in less than 10% bukaanada ay u baahan yihiin embolizationka iyo peritoneal backing. Remember, 90% of bleeding from pelvic fracturada wuxuu ku imaanaa venous, 90% of fracturadaasna waxaa ku filan compression, stabilization, resuscitation. The easiest way to compressna waxa waaye aan dhahnay pelvic sheet ama pelvic binder. So yaa loo sameynaa embolization ama peritoneal backing? Bukaan aan usoo sameynay intii hore oo dhan, kow aan internal resuscitation u sameynay, at least 2 liter oo fluid siinay, at least 2 unit oo dhiiga aan siinay, pelviskii dhaqdhaqaajiskiisii aan joojinay oo pelvic sheet ama binder aan ku xirnay, raaja aan saarnay, intaas bukaanka u sameyno aan aragnay fracturekiisii, bukaankii weli improvement uu sameyn layahay, aan xaqiijinay maxaa la dhahaa resuscitationkii inay sii socoto, bukaankii weli uu wax luus gareynayo, meelo kale uu ka luus gareynayo sida abdomanka iyo thoraciskana aysan jirin, bukaankaas waa bukaanka aan ka fikireyno intuu wax ka beer dareynayo inaan dhahno. markaasna waa stepka next step loo sameynaya waa CT angiography. Okay, bukaankii haddii stable uu noo noqdo, what kind of imaging aan u baahannahay? Remember, imagingka koowaad ee any patient iyo pelvic fracture stable ha ahaado ama unstable ha ahaado, emergency roomka hadiiba la awoodo ama haddii emergencyga banaankiisa image loo aadayo, waxa ugu horeeya ee loo sameynayo waa hal shay, waa ABView oo pelviska ah. Remember, inlet, outlet, CT scan hadda looma baahno. Imagekaas koowaad bukaanka bilaawa horeeto asiga ayaa kuu filan, asiga ayaa kuli wuxuu kaa siin doonaa waxyaabihii aasaasiga ah. asiga ABView-gaas waxaa ka arki doontaa haddii widening ay jirto pubic symphysiskii, haddii ay jirto maxaa la dhahaa sacroiliac jointiga anteriorly and posteriorly haddii disruption jirto, haddii iliac wingiga ama pelvic ringii disruption ay jirto, haddii obturator foramenkii iyo pubic ramaygii ama sacral ischial ramaygii haddii ay disruption ay jirto, asigaa ka arki doontaa. sidaa daraadeed any patient oo emergency ku imaado, think about ABView pelvis keliya. haddii bukaanka unstable uu yahay, kuma sii jirto imaging oo advanced ah si CT iyo waxyaabo lamide, lama ogola in loo diro, because timingka ay qaadanayaan interventionadaas ama imagingkaas waa
maxaa la dhahaa bukaanka resuscitationkii ayay disruption ku samaynayaan, waxayna badinayaan halista bukaanka mortalitygiisa ay ku badato. haddii bukaanka stable uu yahay oo initial resuscitationka markii loo sameeyo ABV pelviska loo sameeyo preoperative evaluationkii aad samayn lahayd, markaasaa waxaa ka fikiraysaa inlet view, outlet view, obturator view ama CT-ga noocyadiisa kala duwan ama any other imaging whole body CT ha ahaado aa u baahnaa lahayd. Remember, initial view waxaa kugu filan aan dhahnay AB view. sida sawirkan muuqdo waxaan u jeednaa widening oo pubic symphysiskii already. sawirkan markaan aragno waxaan ka fikiraynaa this is probably anteroposterior compression pelvic fracture, probably type 2. waxaan u jeednaa right iyo left sacroiliac jointiga, waxaan u jeednaa right anterior sacroiliac jointiga in ay widening uu ku dhacay especially qaybta hoose. waxaan u jeednaa pelvic ringigii inuu intact yahay, inuu maxaa la dhahaa wax fracture ah waxaan u jeednaa acetabulumkii inuu intact yahay, waxaan u jeednaa labada iliac wing inay fiican yihiin. So from this image waxaa basically ka fahmi karnaa what kind of injury uu yahay, at the same time what are the possible associated injuries oo injurygan la xiriiri karo, sida aan classificationada waxyar kadib ku arki karno. sidaa daraadeed ABV pelviska waa first line, CT-ga for further evaluation of the injury asiga gold standard ah. Not only inuu noo sheegayo CT-ga maxaa la dhahaa fractureskii inta aan ka aragnay, laakiin waxa uu noo sheegaa maxaa la dhahaa tusaale. sawirkan waxaan u jeednaa maxaa la dhahaa pubic symphysiskii wideningkii ku dhacay, waxaan arki karnaa femoral headkii, waxaan arki karnaa acetabulumkii, waxaan arki karnaa oo kale soft tissue iyo organadii kale meesha ku jira. haddii contrast la isticmaalaan waxaa sidoo kale arki karnaa haddii bladderkii ama organadii kaleeto rupture iyo wax lamid uu ku dhacay. axial CT-ga oo very important waxaan ku arki karnaa disruption oo ku dhacdo sacroiliac jointiga, si sawirkan ka muuqato right sacroiliac jointiga widening ku dhacay oo kaleeto. Remember 3D CT scanka wuxuu muhiim u yahay inaan aragno number of fragmentska, sizeka each fragment inta ay la eg tahay, positionka each fragmentiga iyo relationshipka fragmentskaas ayaga dhexdooda ka dhaco. Preoperative evaluationkani muhiim ayay noogu tahay. laakiin yaa loo sameynaa bukaan stable ah. Remember, bukaan aanan stable ahayn oo hemodynamically aan stable ah, maxaa la dhahaa advanced imagingkan waxa ay yareynayaan ama intervention ku sameynayaan resuscitationkii bukaanka loo sameyn lahaa, bukaankiina khatar ayuu kaa geli karaa. sidaa daraadeed after stabilizing resuscitating the patient ayaa imagingka dheeriga la diraa. aan u imaano pelvic fracturada noocyadooda kala duwan classificationada. Remember, classificationna badan ayaa jira, anatomically qaar ku salaysan yihiin, qaar waxay ku salaysan yihiin mechanism of injury, qaar waxay ku salaysan yihiin stability, qaarna research wise ayaa loo isticmaalaa. AO iyo OTA classificationada ugu caansan ay kamid yihiin, laakiin badanaa research purposes ayaa loo isticmaalaa. Tile classification probably aan wada maqanay waa mid ugu caansan, mid aan sawirkan ka muuqatana laga keenay ee loo yaqaano Young-Burgess classification. Tile classification waxaa lagu saleeyaa stability-ga injury-ga. Remember, stability-ga injury-ga marka la dhahayana tileka wuxuu u qaybsanaa type A, type B, type C oo laga kala wado stable, partially unstable iyo completely unstable, oo marna ligamentiyadii rotationally unstable yihiin, marna rotationally iyo vertically unstable yihiin. Classificationada ha badnaadaan, laakiin remember midda ugu badan ee la isticmaalo oo clinically useful ah waa Young-Burgess classification. Young-Burgess classification sida articlekan ay qoreen labadooda, Young iyo Burgess ay qoreen, waxa ay ku fiican tahay number one, waxa ay ku salaysan tahay classificationkan mechanism of injury. So imageka raajada markaa aragtid waxaa qiyaasi kartaa what type of rotational injury uu yahay dhaawacan. tusaale saddexda sawiro ugu horeeya ee A iyo B iyo C waxaan u jeednaa in widening pubic symphysiska ku dhacayo uu marba mar ka dambeyso sii kala daran yahay. So this is ABC type injury.
classificationkan 4 xabo waaye sida aan qaybtan hoose uga jeedaan lateral compression injury, anteroposterior compression injury, vertical shear injury iyo combination types oo either LC, ABC, vertical shear iyo ABC, vertical shear iyo LC, any type of combination type kasoo hosgeli karo. Marka classificationka number 1 waxay ku fiican tahay, waxay ku sheegaysaa mechanism of injury, bukaankan sidee wax u gaareen. Tusaale, sawirka D iyo E iyo F waa lateral compression type oo micnaheedu uu yahay injuryga wuxuu ku dhacay jugta, waxay bukaanku uga dhacday one side of the pelvis. Waa nooca ugu badan lateral compressionka. Qofkii uu tusaale wadada goynayo ayuu gaari ku dhacay, mooto ku dhacday, wax ku dhaceen, lateral impactiga waxay ka timid lateral side of the pelvis. Laakiin nooca labaad oo ugu badan oo ABC typeka oo saddexda sawir ee A iyo B iyo C ay ku qoran tahay, injuryga wuxuu ka yimaaday front of the pelvis ama back of the pelvis. Waa open book nooca loo yaqaano. Kan kalena waa LC type, waa nooca loo yaqaano close type injury. Vertical shearka oo nooca ugu dambeeya ee sawirka ugu dambeeyay G ay ku qoran tahay, badanaa wuxuu ka imaadaa falls. Labada kale laakiin waxay ka imaan karaan maxaa la dhahaa motor vehicle accidentiga, shil gaari, shil mooto, crash injurieski wax lamid ah. Laakiin vertical shearka waxa ugu badan ee lala xiriiriyo in one side of the pelviskii uu migration superiorly uu sameeyo, waa axial force oo hoos ka imaanaysa. Bukaankiyaa soo dhacay, lugtii ilaa limbigiio hoos dhigtay, that side oo axial injuryga ama axial loadka ka imaaday ayaana waxay sababaysaa migration of one side of the pelvis inay superiorly ay aado. Okay, remember classificationada kale waxay sidoo kale uga fiican tahay interobserver iyo interobserver agreementigeeda way ka badan tahay kuwa kale. Sidoo kalena not only inay mechanism of injuryga noo sheegayso, laakiin waxay noo sheegaysaa possible associated injurieska. Waxay sidoo kale noo sheegi kartaa possible resuscitative maxaa la dhahaa requirementska, ilaa meeqa ayuu bukaankan u baahan yahay in aan resuscitation u sameyno. Probably vascular injuryga yuu ku badan yahay. Waxaan ognahay ABC type 3gan oo kaleeto iyo LC type 3gan oo kaleeto in ay yihiin kuwa ugu badan vascular iyo abdominal iyo urologic injuryga lala xiriiriyay inay yihiin. So by using Young-Vargas classification waxaa la dhahaa waa classificationka ugu fiican, waana midda most commonly used. Sababta loo isticmaalayana waxay tahay in ay ku dictate garaynayso what type of treatment, inay ku sheegayso possible underlying mechanism of injury, in interagreementiga iyo intra-agreementiga ay ku fiican tahay, iyo maxaa la dhahaa in ay ku tilmaamaysa hataa possible associated injurieska. Si brief ah haddii aan classificationka description uga bixiyo, saddexda koowaad waa ABC injuries. Remember ABC1ka anteroposterior compression injuryga waxaa jiro keliya widening of the pubic symphysis ka yar, usually 2.5 cm, 2.5 cm. waxaana disruptionka ay ka jirtaa maxaa la dhahaa symphysia ligamentigi. Remember ligamentiskii kaleete ee pelvic floorka ama kuwii anterior posterior sacroiliac ligamentiskii waa intact, laakiin type 2 ABC-ga wideningkii pubic symphysis ka jiray 2.5 wuu ka badan yahay, usually wuu ka yaryahay 10 cm. Kasoo kow in disruption uu ku dhacay symphysia ligamentigi, sidoo kale waxaa damage gaaray maxaa lahaa sacrospinous iyo sacrotuberous ligamentiga, sidoo kalena anterior sacroiliac ligamentigi oo hal dhinac ayuu damage gaaray. Remember type 2ga iyo type 3ga waxa lagu kala saaro waxa ugu muhiimsan number 1 distancega ama wideningka oo pubic symphysiska. Number 2 type 2ga pelvic floor ligamentiskii ama ligamentiyadu ku waaweynaa ee sacrospinous iyo sacrotuberous ligamentiga iyo wuxuu dhaawaca ka jiraa anterior sacroiliac ligamentiga. Laakiin ABC type 3ga waxa injuryga uu ka jiraa oo intii hore u dheeriya posterior sacroiliac ligamentiga. Taas micnaheedu waxay tahay waxa uu ka agdhow yahay ABC type 3ga vertical shearka. Kaliya waxay ku kala duwan yihiin kan migration ayuu one side of the hemipelvis sameeyey, kan laakiin migration ma sameynin, because tan anterior external rotation injury waa waxa ku dhacay, tan laakiin axial force waa waxa ku dhacay.
LC lateral compression injuries oo ah nooca ugu badan pelvic fracturada, Young-Burgess classification-kana nooca ugu badana waxaa lagu yaqaanaa marka koowaad type A-giisa in sacral aalada fracture yar ku dhaco, displacement uusan lahayn, badanaana waxaa la socda superior ama inferior pubic ramiga oo dhinacii jugta ay ku dhacday. Remember ligamentiyadii waa intact. So, symphysial ligamentigii, sacrotuberosacrospinous ligamentigii, anterior posterior sacroiliac ligamentigii, iliolumbar ligamentigii, ligamentiyadii vertical iyo rotational stability ku shaqa lahaa dhammaantood waa intact. LC type 2ga ka sokow in pubic ramigii ama ischia ramigii uu injury gaaray, waxaa markaan damage ay gaartay maxaa la lahaa iliac wingiga. Remember iliac wingigii jabkan gaaray waxa uu sidoo kaleeto la socon karaa disruption oo ligamentiskii contralateral side laakiin severe ma ahan. Type 3ga ama LC type 3ga waxaa lagu yaqaanaa injurygii in uu la mid yahay kow dhinacii jugta ee ku dhacday iliac wingii wuu jabay, superior iyo inferior pubic ramiga way jabeen, laakiin contralateral sidekii jugta aysan ku dhicin ayaa waxaa go-ay oo disruption uu ku dhacay kow sacrospinous sacrotuberous ligamentigi, sidoo kaleetana sacroiliac jointiga ligamentiyadoodii ayagana disruption iyo contralateral SI joint gap ayaa imaanaya. Vertical shearka dhinacii jugta ee ku dhacday ayaa migration sameynayso, the whole hemipelvisna detached ayuu ka noqonaa maxaa la dhahaa dhinacii kaleeto, waxaana go-ayo sacrotuberous sacrospinous ilaa haduu ku roon yahay anterior posterior sacroiliac ligament iyo xataa iliolumbar ligamentiski. So classificationka in brief intaas waaye. Remember Young-Burgess classificationka ayada ayaa ugu badan. Waxaan dhahnay associated injuries ayaa jiro labadan study oo midna UK laga sameeyey midna laga sameeyey India oo studyada ugu caansan ka mid ah. Waxa ay labadoodaba ogaadeen associated injurieska ugu badan oo lala xiriiriyo fractureskan unstable pelvic injurieska waxaa ka mid ah number one waxaa ka mid ah chest injuries, number 2 head injuries, close head injurieska, number 2 abdominal injuries ay kamid yihiin liverka iyo spleenka labada ugu badan, long bone fracturada extremity injurieska, urological injurieska ha noqdaan urethral injury hama noqdaan urinary bladder injury iyo wax lamida. So remember most of these unstable fracturada waxaa lala xiriiriyaa maxaa la dhahaa associated injurieskaas ha u badnaadaan abdominal, long bone, urologic iyo head injuries. So think about any patient oo unstable fracture leh pelviska gaar ahaan LC type 2, LC type 3, ABC type 2, ABC type 3, vertical shear, shantaasno in ay lahaan karaan associated injurieska. Okay, yaa ugu dhibaato badan kuwii unstableka hadda aan tirinayna. Remember waa kuwa lala xiriiriyo highest mortality, waa kuwa associated injurieska iskale, waa kuwa vascular injurieska iskale. Remember ABC typeska gaar ahaan ABC type 2 iyo ABC type 3 waxaa lala xiriiriyaa vascular injury, waxaa lala xiriiriyaa urological injury, waxaa lala xiriiriyaa abdominal injury. LC type 3ga LC type 2ga ayagana waxaa lala xiriiriyaa abdominal injury, head injury iyo maxaa la dhahaa urological injury. Combination typeka waxay ku xiran tahay nooca uu yahay, laakiin ayagana highest mortality ayay leeyihiin. So bukaanadan waa kuwa u baahan aggressive resuscitation iyo ICU inay muddo lagu hayn doono. Okay, so waxaan kasoo hadalnay epidemiologigii, waxaan kasoo hadalnay emergency assessmentigii iyo approachkii bukaanka loo sameyn lahaa, waxaan sidoo kale kasoo hadalnay imagingka iyo classificationka. So maxaa loo sameynaya definitive treatmentiga oo bukaanadan maxaa waay? Actually waxay ku xiran tahay nooca fracture uu yahay. Sida long boneska caadiga aan u isticmaalno indicationisa jiray absolute iyo relative ah. Sidoo kaleetana pelvic fracturada marka la joogo waxay ku xiran tahay fractureke stable ah, fractureke unstable ah. Okay, badanaa fracturada LC type 1
oo micnaheedu uu yahay ABC type 1 cafwan ABC type 1 oo micnaheedu uu yahay widening oo pubic symphysiskii ka yar 2.5 centimeter disruptionkana uu ku egyahay keliya symphysis ligamentiga bukaankana uusan qabin instability kale oo pelviska markaan physical examination aan sameyno oo movement iyo tenderness kale oo pelviska aysan jirin hemodynamically stable uu yahay bukaankaas qalliin uma baahno. Kow. Labo, bukaanka ABC type 1 ah oo keliya isolated injury pelviska ama sacral aalada fracture jiro bukaankaas tenderness daran lahayn instability lahayn ligamentiyadii intact yihiin pelvic examination marka aad samaysid one side of the pelviskii oo excessively mobile uusan ahayn bukaankaas asigana qalliin uma baahno. Ka sokow labadaas type any isolated fracture ischial rami fracture gooni ha ahaado isolated superior ama inferior pubic rami fracture ha ahaado non-displaced iliac wing fracture ha ahaado fracturadaas isolated fracturada ee displacementigooda minimum ay tahay ayagana qalliin uma baahno. So remember labadan nooc ee hadda aan sheegnay iyo any isolated fracture meeshuu rabaa ka jiro displacementigiisa minimum ay tahay ama non-displaced uu yahay indication qalliina ma lahan bukaankaas conservative treatment iyo wuxuu u baahan yahay maxaa la dhahaa waxyaabo kaleeto supportive ay ugu muhiimsan tahay pain management DVT prophylaxis and so on. yaa la qalaa yaa qalliin u baahan. Remember waxaan aanay fracturadii high morbidity mortality lahaa waxay ahaayeen ABC type 2 ABC type 3 LC type 2 LC type 3 iyo vertical shear. Fracturadan waa kuwa displaced ka ahaa ligamentiskii pelviska support garayn lahaana disruption ay ka jirta ha ahaadaan symphysia ligamentiga oo aad u kala tegay ha ahaadaan pelvic floor ligamentiska ha ahaadaan maxaa la dhahaa anterior posterior sacroiliac ligamentiska ama one side of the hemipelvis dhan inuu unstable u yahay. Fracturada noocaas waxay u baahan yihiin internal fixation. Remember fixationka waxay noqon kartaa external waxay noqon kartaa internal nooca fixationkana wuxuu u noqon karaa maxaa la dhahaa waxa loo yaqaano either maxaa la dhahaa iliosacral screw wuxuu noqon karaa plating oo anteriorly wuxuu noqon karaa plating iliac wingiga wuxuu noqon karaa combination oo intaba ah. Okay, so sawirkan marka aan fiirino bukaankan waa bukaan qabay probably LC type 3 maxaa la dhahaa fracture. Remember jugta waxay ku dhacday maxaa la dhahaa dhinaci kaleeto ayay impactiga gaartay iliac wingigan ka sokow inuu jaban yahay superior inferior ramigan inay jaban yihiin ka sokow sidoo kale dhinacaana disrupted ayuu ahaa. Gadaal dambaan case ka arki doonaa. So fixationka kuma daahayo initial manage focuskaygana wuxuu ahaa approachka emergencyga iyo principleska pelvic fractureka. Okay, waxaan kusoo gabagabeynaa presentationka laba case. Caseka koowaad waxa waaye 49 jir female ah shil gaari soo gashay kadibna imaaday emergencyga ayadoo vitaliskeeda stable yihiin kana cabanayso pain in the pelvis waa la keenay iyo inay dhaqaaqi laadahay lugeeda wax shortanina ma lahayn hemodynamically stable ay ahayd. So su-aasha waxay tahay maxaan sameynaynaa principalka waxaan soo qaadanay ma ka discuss garaynaynaa mase shall I go ahead Dr. Barre? Sorry, go ahead. Okay, haddii anyone oo asxaabta ku jirta ay wax mulaaxadaa ku dirayaan okay waaye laakiin waxyaabihii loo sameeyey labadii case oo bilowga aan idiin sheegaya waaye ayaan orod dul mari doonaa. So as usual waxaan aanay any patient oo emergency-ga imaado oo high injury leh shil gaari remember mechanism of injury oo gaari speed ku socdaa means waa high energy trauma. High energy trauma of course waxaan u sameynaynay ABCD EFGH I. bukaankan remember briefly waxaa idiin sheegay inay vitaliskiisi stable yihiin of course any patient oo pelvic fracture laba canulos sizekooda weyn yihiin 16-18 la suraa IV linekii fluidkii lagu xiraa maxaa la dhahaa any other high energy trauma patient ayaa loo approach garaynaa. bukaankii waa la fiiriyey wax other associated injuries ma lahayn. Associated injuries maadaama uusan lahayn raaja la saaray raajadiisiina sidan ayay u taallaa. So
next question waxay tahay marka, is this a stable fracture or unstable fracture? ama si kala hadaan u dhahno, is this stable pelvis ama unstable pelvis? by definition waxaan dhahnay stable waxaa la dhahaa bukaanka initially markii aan qabanno pelvic binderkii loo xiro, waxaa la dhahaa x-raygii la saaro, vitaliskiisii ay isbedeli waayaan. Unstable definitionkeeda waxay ahayd isbedeli waayaan, oo micnaheeda anagoo liter ama 2 liter oo fluid iyo 2 unit oo blood aan siinay, weli bukaankii vitaliskiisii deranged ay yihiin, lactatekiisii deranged uu yahay, hypothermic ah, bukaankaas ayaa unstable ahaa. Remember, bukaankan initially waa timid conscious, vitaliskeeda normal ay ahaayeen, maxaa la dhahaa raajadii markii la saarana sidaan waay. So bukaankan waa stable, pelviskaas waa stable. Remember, waxay leedahay isolated injury oo left superior iyo inferior pubic rami. sidaa daraadeed isolated injurieskan ma u baahnaayeen qaliin. CT scan ma u baahan yihiin, of course waa la saaray. CT scanka 3D-ga dhexe waxaan u jeednaa in anterior sacroiliac jointskii bidixda oo si fiican ay u jeedin iyo midigta labadaba normal ay yihiin. Axial CT-ga dhanka geeska ka muuqdana waxaan u jeednaa intact inay tahay, waxaa la dhahaa labadii sacroiliac ligamentskii wax dheen, maybe meeshaas fragment yar inay ka muuqato, lakin anyway bukaankii gabagabadii sawirkan marka aragna wax qaliina ma u baahan yahay, most likely maya. bukaankii waxaa loo sameeyey maxaa la dhahaa sawirkan AO aan kasoo qaatay, labada dhinacyada kama jabneen, dhinac kamid ayuu ka jabnaa, si illustration ahaan aan u isticmaalno. waxaa loo sameeyey conservative treatment. Okay. Remember complicationada oo pelvic fracturada, inkastoo aanan waqti u helin inaan wax badan oo complicationada kusoo daro, femaleka marka la joogo chronic pelvic pain iyo pain during sex ayaa kamid ah, maadaama caseka female ahaa long term complicationada. Okay, casekan labaad waa bukaan 28 jir ah. Remember, epidemiology bukaanadan da-dooda badanaa waxay u dhexeysay 10 ilaa 40 jiro, young adults active ah, niman ah ayay u badan tahay. Mortality-ga ayay ku badneed. shil gaari ayuu soo galay isagoo unconscious oo hypotensive ayaa emergency-ga la keenay, sidaan ayuuna u yaalay. Remember, waxaan kasoo hadalnay close pelvic fracture. Casekan laakiin waa open. Principleska any open fracture markuu imaado, algorithmkii aan soo isticmaalayn waxaa kamid ahaa antibioticadii, tetanadii, maxaa la dhahaa, iyo as early as possible IND in loo sameeyo. nabarkaasne as early as possible, preferably within 7 days hadii la xiri kara la xiro. So bukaanki intaas ayuu emergency ku imaaday. Any patient high energy trauma markuu imaado maxaa loo sameynaa? intii aan sheegnay ABCDFGH. Remember, airway, breathing, circulation. Any patient oo high energy trauma leh oo open wounds leh, remember lock roll in loo sameeyo, baaga in la fiiriyo, perineumka in la fiiriyo, scrotumka la fiiriyo, catheterka inta aan la gelinin in la fiiriyo, any bleeding in the opening of the urethra ama urethral meatuska, taasoo ka tarjumi karta urethral injury inuu jiro. Remember, LC typeska iyo ABC typeska gaar ahaan 2 iyo 3-ga waxaa lala xiriirin jiray urethral injuries. sidaa daraadeed catheterka intaadan gelin, maxaa la dhahaa, examinationka ku dar inay fiirisid by inspection if there is any bleeding in maxaa la dhahaa urethral opening ama meatus. Femaleska sidaas oo kaleeto vaginaha fiiri, rectumka fiiri, even prostate examination haddii high riding prostate uu jiro, waxyaabaha la fiirinayo ayuu kamid yahay. So bukaankii of course waxaa loo sameynaa fluida lagu xiraa. At the same time bukaankan maadaama shock hypotensive uu yahay, wax response hadduu ka bixin waayo first liter ama 2 liter most likely kama bixin doone, waxaa loo sameynaa immediate maxaa la dhahaa blood transfusion. waxaa la prefer gareeyaa ratio of 1:1:1. waxaa la dhahaa, waxaana isla marka bukaanka la examine gareynayo primary surveyga loo sameynayo, waxyaabaha loo qabanayo waxaa ku jiro pelvic sheetkii ama pelvic binderkii in la xiro. Remember, hadiiba la helayo in dadka emergency-ga bukaankan ambulance soo qaadayso ay siteka injury-ga ugu soo xiraan, waa sida fiican oo mortality-ga yareynayso. laakiin hadiiba aysan jirin, immediately emergency-ga marka la keeno any patient oo pelvic fracture leh,
waa in loo xiraa pelvic binder. kuma sii jirto unstable, hypotensive, unconscious iyo shock patientska. So pelvic binderkii ayaa bukaanka loo xiray, kadibna waxaa la saaray ABVO. Remember raajada emergencyga badanaa lagu saaraa. markaan bukaankan China joogay, it was during my training. raajadii sidaanay u ekeed. So waxaan ujeednaa mess inay meeshan ka jirto. waxaan ujeednaa probably waa LC type 3 injury. waxaan ujeednaa jugta dhinacii ay ku dhacday, ka sokow iliac wingigi inuu jaban yahay, ka sokow in ay sacroiliac jointigan disrupted tahay, ka sokow superior iyo inferior pubic rami-gii impact site-kii inay jaban tahay, contralateral site-kii ayay damage ka jirtaa. sidoo kale waxaan ujeednaa contralateral site-kii sacroiliac jointigii inay disrupted tahay. waa arki doonaa CT-ga. so raajadii markii la saaray waxaan ujeednaa in ay maxaa la dhahaa, this is LC type 3. waxaan qiyaas karnaa in bukaankan resuscitationkiisa time qaadan doonto. bukaankan most likely inuu leeyahay multiple associated injuries. of course wuxuu u baahan yahay assessment meelihii kale, teamka general surgeryga, urologyga inay fiiriyaan. haddii response uu ka bixin waayena wuxuu u baahnaanaa in loo sameeyo exploration laboratomy iyo meelihii kale possibly bleedingka uu ka dhici lahaa in maxaa la dhahaa ama la furo ama maxaa la dhahaa aspiration iyo wax lamida loo sameeyay sida gestab ama plural ama waxa loo yaqaano diagnostic peritoneal lavage iyo wax lamida. then remember bukaanka after resuscitation, inkastoo casekan case isbitaalka ku dahay uu ahaa, then wuu badbaadi doonaa. wuxuu lahaa isolated injuries, wuxuu lahaa dhinaca midig pelviska dhinacii jabnaa uu ahaa, lugta midig fibuloda jabneed, laakiin huge swelling ee lugta lahayd sida ujeedaan. emergencyga badanaa si istaalada qaar ay leeyihiin waxaa ku dhegan qol yar oo emergency OT lugti maadaama aaday u bararsaneed waxaa loo sameeyey emergency fasciotomy. saalada markii la geeyey oo damage control surgeryga loo sameynayo waa sawirkan. lugta kale contralateral side-ka proximal tibia ayuu tibial plateau fracture probably waa ujeedaan meeshan. CT scanka markii la saarana waa ujeedaan this whole side oo iliac wingii sacroiliac jointigii maxaa la dhahaa iyo maxaa la dhahaa pubic ramayadii sida ay u burbursan yihiin. so qankii father imagina la sameeyey, pelvic binderkii ku xirnaa. bukaankan waxaa loo sameyn doonaa external fixator. resuscitationkii loo sii waday. saaladaa la geeyey for damage control surgery for labadii nabarkii kore ee inguinal areada open pelvic fracturekii debridement loo sameeyo, lugtan emergency fasciotomy loo sameeyo. then bukaankii gadaal dambeeto ICU muddo ku jiray. nasiib wanaag muusan lahayn abdominal injury, nasiib wanaag muusan lahayn urological injury. wuxuu lahaa contusion iyo head injury oo gadaal dambeeto level of conscious nimadiisii wuxuu heli doonaa I think haddaan khaldanayn day 7 day 8 first week kadib soo naaxay, laakiin waxaa loo sameeyey massive blood transfusion. I think more than 10 units oo blood ayaa lagu shubay. after muddo dheer resuscitation markii loo sameeyey, bukaankii tibial plateau fracturekii fasciotomyadii maxaa la dhahaa iyo fixationkii pelvic fractureka waxaa loo sameeyey day 16. istaalkana bil kadib ayuu ka baxay. at the end waxaan kusoo gabagabeynaa pelvic fractures remember waa life threatening injuries. most of the time fracturadan 50% ka badan waa unstable, waxaana la socdaa associated injuries. sidaa daraadeed ujeedka koowaad waxay tahay in bukaanka nafsadiisa la badbaadiyo, kadib limbiga, kadibna la yareeyo disabilityga. bukaankii la isku dayo ilaa xad in limb functional ah loo reebo. the best way ee lifeka lagu badbaadi karaan waxay tahay early application of pelvic binder iyo aggressive resuscitation with fluid iyo blood transfusion. remember x-raydii iyo assessmentigii emergencyga ee physical examinationka waxaan ku ogaan karnaa which fractures are unstable ah iyo managementiga fracturadaas, waana which fractures ayaa surgical management loo sameynaa, which fractures ayaa
non surgical loo sameynaa. Waatii aan dhahnay stable fracturada gaar ahaan ABC type 1, LC type 1 iyo fracturadii isolated injurieska ahaa sida oo displacement aanan lahayn ama displacementigooda minimal ahaa. kuwa kaleetana after stabilization of the patient, after further imaging iyo preoperative evaluation ayaa waxaa loo sameynaa internal fixation. Remember pelvic injurieska maadaama ay leeyihiin associated injuries iyo assessmentiga bukaanka marka koowaad emergencyga yimaado maaha wax orthopediga keliya ku eg, waa wax u baahan teamwork, timeka bukaanka from initial assessment to resuscitation to interventioniska crucialka loo sameynayana waa muhiim si maxaa la dhahaa loo yareeyo mortality. aada umahadsantiin. Dr. Said waa mahadsan tahay. Topican topic aad u culus waaye. Pelvic ring fracture waxaan u baahan yahay sida dhammaantiin ognahay comprehensive understanding of potential oo pelvic ring fracture instability ha noqoto, displacement ha noqoto, associated injury. Doctor, marka waa kaaga mahadcelinahay sida wanaagsan aad oo meel kasta dhinac kasta ka taabatay topican ugu hadashay. Waxaan hadda u gudbinaynaa wixii su-aalaha dhaqaatiirta qabto ayaan u gudbinaynaa. Inta ka horeyso aniga ayaa su-aal qabo oo ah graftigii aad soo dhigtay oo ahay oo sharxaysay graftigaas oo angiographiga ka hadlaysay. Angiographiga and how early angiography can reduce from the mortality markaan ka fiirinayno, because time ma leeyahay aan ku xisaabtamayno oo qofka aan u diri karno anako markaas lehayno mortalityga anakoo yarayno mase any delay waan kusoo bixi karnaa angiographiga. Hello, Dr. Said. Doctor waa ku maqlaa. Truly speaking waa jeclaan lahaa su-aalaha in ay open noqdaan si asxaabta kale qofka experiencegiisa comment ku daraayo, laakiin truly speaking angiographiga maxaa la dhahaa horta waxaan ka hadlayno settingkeena Soomaaliya theoretically mase practically. waxaan ka hadlayno wixii oo idealka la rabay waayo, laakiin in the setting of Somalia waxaan ka hadlayno I don't think inay feasible yihiin theoretically speaking. marka maadaama la dhahay less than 10% oo pelvic fracturada ayaa waxay u baahan yihiin CT angiography. waxa less than 10% ayaa bleedingkooda ka imaanaya arterial, especially superior gluteal arterieska ayaa arteriala. percentageka bukaanada u baahnaanayo CT angio waxay usually ka yaryihiin 2%. waxaan akrinayay inta cashirkan aan diyaarinayay study I think oo UK laga sameeyey, one of the dadka caalamka ugu caansan ninkan aan studygiisa soo xigtay oo predictoriska iyo outcomeka iyo mortality ka hadlayo, nin asalkiisa I think inuu yahay Bolshmia meelahaas waa hadda Ingiriis ka shaqeeyo, Peter Ginod waxtaas la dhaha magaciisa waaye. wuxuu fiiriyey bukaano badan oo pelvic fracturesa. bukaanadaas wuxuu fiiriyey meeqa kamid ayaa CT la sameeyey, meeqa kamid ayaana vascular injury laheyd oo CT angi markii la saaray la ogaaday in ay helpful ahayd. wuxuu ogaaday 1.2%. so markii ay fiirisid markii su-aalahan oo kaleeto dadkii real experiencegi sameeyey ay weydiisid waxay ku dhahayaan centerkeena oo 20 ama 15 pelvic fracture sanadkii qabato 5 sano lasoo dhaafo waxaa laga yaabnaa ku dhahayaan in aan sameyno 1 CT angio ama 2 CT angio ama 3 CT angio. marka you can imagine inay aad u yartahay. one easy way oo badanaa su-aashaan markii la isweydiinayo lagu jawaabo waxa waaye bukaanka haddii uu leeyahay hemodynamic instability after pelvic binder, after resuscitation, adigana aad suspect garaynaysid in uu leeyahay bukaankan pelvic bleeding oo aad xaqiijisid in shockgan iyo instabilitygan aysan splenic liver iyo any other major extra pelvic organ aysan ka imaanaynin, waxa fududaa la dhahaa koo xaqiiji pelvic binderka si sax inuu kugu xiran yahay. 2 pelviska fur, backing u samey, simple backing. then waxaa la ogaaday
peritoneal pelvic packingkaas in uu yaraynayo mortalitygii, in uu yaraynayo bleedingkii. This is maxaa la dhahaa the first step oo maxaa la dhahaa ka horeyso maxaa la dhahaa kan. So even centerada haysto maxaa la dhahaa CTO-NGO, it's not their first line. Protocolkan ku iskale waxay recommend garaynayaan number one maxaa la dhahaa pelvic binder, number two rule out other bleeding source inuu ka imaanayo, number three maxaa la dhahaa samey. Haddii asxaabta qof kale oo ka tirsan oo real life experience ku darayo waa soo dhaweynaa. waa mahadsantahay doctor sida wanaagsan ugu jawaabtay. wixii question ah doctorka waa usoo gudbi kartiin, microphone-kana waa ii furan yahay, message-na waa kusoo gudbi kartiin. soo dhawaada khiyaarta. intay dhakhaatiirta qaar soo su-aalaha soo gudbinaya doctor, hal su-aal oo kale aan qabaa ku weydiin lahay. qofka pelvic fracture-ka ah effect noocoo futurekiisa ku yeelanaya noloshiisa caadiga ah hadii oo managementiga kadib lagu soo biyo unstable pelvic fracture? tusaale camal keiska data soo bandhigtay oo safiirka ahaayoo ugu dambeeyay kiisaska aaga oo aa ka sheekeynaysa. Doctor, waxay ku xiran tahay meesha fracture-ka uu ka jiray. ma wuxuu ka jiray, aniga hadda ma aanan cover garaynin sacral fracture, si gooniya maanan cover garaynin isolated injurieska meelaha qaar ku dhacayo ama even acetabulumka. Remember pelvic fracture-dan qaar kamid ah acetabulum fracture ayaa la socda, laakiin overall complicationada pelviska waxa male iyo female long term complicationada ugu badan waa chronic pelvic pain. Chronic pelvic pain-kana bukaanada ugu badan oo lala xiriiriyo waa bukaanada injurigooda uu gaarayo qaybta gadaala sacroiliac jointska. So long term effectiga uu ku leeyahay waxaa kamid ah pain, chronic pelvic pain. Number two, male-ka iyo female-ka waxyaabaha lala xiriiro waxaa kamid ah maxaa la dhahaa sexual difficultygaas waxay noqon kartaa either during pain, during intercourse, ama waxyaaba kaleeto oo sexual dysfunction ayaa lala xiriiri karaa. iyo meel kastoo trauma ku dhacdo waxyaabaha kale oo ku dhici kara waxaa kamid ah post traumatic osteoarthritis, heterotopic ossification, limitation in mobility, of course post traumatic stress disorder. listigu waa dheeryaha laakiin waxaan isleeyahay kuwa ugu caansan intaas waay. thank you sir. okay, waxaan filayaa dhakhaatiirta doctorska qad ku jiro wax question ah doctor ku weysiin. Dr. Said waa mahadsantahay doctor, aan wax su-aal ma qabo. waana la socday lecture-kaaga aad u qiimo badan yahay walow tiimka ay nagu yaraayeen. marka waxaan soo jeedinaa saaxiibada kale ee hadda qadka ku jira iyo kuwa kaleba in barnaamijyada sidaan oo kale ah dadka mar walba jaanis noocan oo kale ma helaan in laga faa'iideysto oo dad badan ay kasoo qayb galaan si wacyiga bulshadeena kor ugu qaadmo, annaga dhakhaatiir ahaana wax u kala faa'iidno. runaantii waxaan dhihi karaa agjarada ugu productive ka fiicnaa waaye maanta Dr. Said noo jeediyey, waana kaaga mahadcelinayaa si guud iyo si gaarba. aad u mahadsantahay gudoomiye. aad u weyn waa lecture qiimo leh, hal maalin keliya laguma soo koobi karo lecture-kan pelvic fracture-ka. waa ogna dhammaantiin inuu challenge badan leeyahay, especially resuscitation-ka marka laga hadlayay acute management-iga ugu horeeyo oo emergency-ga qofka la keenayo. ABC-da aad ugu hadlay doctorka, waa ku mahadsan yahay. kaalmo badan ayaa qadka ku baxo. Dr. Sayidow, su-aasha anoo sii daba dhiganayo waxaa dhahday 2 liter waa in la siiyaa dhahday markii acute management-iga la suubinayo. 2 literkaas oo crystallizationka la isticmaalayo, wax blood transfusion recommendation ku bixisa markaas oo qofka laga gaarsiinayo? Editor, in general any patient who emergency-ga imaado oo traumatic injury leh, ha ahaado abdominal ama extremity injury, ATLS-ku waxay dhahayaan inkastoo kii ugu dambeeyey 1 liter uu dhahayo, weli waxaa la isticmaalaa protocollada 2 liter lagu dhegan yahay, usually 1 to 2 liters alla. So initially maadaama helitaanka dhiigga uusan sida fluidka shalviga u saarneen,
kow waxaa lagu bilaabaa fluid, so normal saline, haddii kaleeta ringer, tii aa helaysid labadooda, waxa ugu badan ee la isticmaalaya labadooda waa. So marka aad siinaysid marka first liter of normal saline, bukaankiina assessmentigaaga aa wedid, markaasaa waxaa fiiri kartaa baahida aa u qabtid dhiigga within the first 10 minutes. Pelvic binderka ku xirtay, pelvigaagii unstable miya ahaa, most likely bukaanka resuscitation dheeri uu sii baahnaan doonaa. caloosha ma bararsan tahay, maxaa la dhahaa, distension ma jirta, I mean extremity-ga wax active bleeding ma jiro, then most likely bukaankan fluid ka badan oo u baahnaana. 10 daqiiqo gudahood CBC ga kuu soo baxay, waxaa arki doontaa hematocrit value waagi, then meeshaasaa waxaa ka go-aansanaysaa in immediate transfusion aa sameyneysid the second liter intuu kugu socdo, ama bukaankii resuscitationkii response inuu ka bixiyey oo BPgii 90 ahaa 95 muu imaaday, systolicgii 100 muu imaaday, hoos muu usii socdaa, markaasaa aad dalbanaysaa. micnaheeda maahan in fluidka sida loo bilaabayo dhiiggana loo bilaabayo, waxay ku xiran tahay oo stable iyo hemodynamically bukaanku uu yahay. Most of the time any patient oo shock la imaada emergency-ga waxaa la dhahaa wuxuu u baahnaan doonaa fluid, sababta looga cararayo wuxuu u baahnaan doonaa dhiig, sababta looga cararayo continuous maxaa la dhahaa fluid transfusion oo 3 liter 4 liter waa hemodilution, DIC iyo coagulopathy-ga ayay ka qayb qaadanayaan la dhahaa. aad mahadsantahay doctor. midkan oo pelvic binderka oo mataqaanaa initial first aid-ka ah, and how prolonged, because prolonged hadduu yahay oo binderkaas ku apply garaysid, waxaa laga yaabaa skin necrosis inuu suubiyo, damage kale inuu suubiyo. So marka how long oo qofkaana aad dhihi kartaa binderka ku hay kartaa adoo diyaarinayo surgicalki kale, procedure kale diyaarinayo, ha noqoto isbitaalka dhexdiisa ama ha noqoto banaanka? wallahi bilowga horeeto principalka wuxuu ahaa life of a limb, so bilowga horeeto lagama fikirayo bukaanka in skin necrosis uu sameeyey, meeshii xoogaa cadaadisay, waxay compress garaysay. bilowga hore waxaa muhiim nafti bukaanka in la badbaadiyo. So even articalka oo teamkan articalka aan soo reference gareeyey waxa uu oo recommend garaynaa pelvic binderka, pelvic sheetka caadiga ahaa number 1 asigaa fudud oo la isticmaali karaa markii bukaanka lagu xiro, inuu kugu xirnaan karo maalmo, usbuucyo, inuu kugu xirnaan karo adigoo aanan ka welweleynin. kan keliya articalka I hope in chatka aan soo dhigo ama groupka ururka aan soo dhigo, wuxuu dhahaa bukaanka markaa emergency pelvic binderka ku xirtid, haddii pelviga intervention uusan u baahnayn sida external fixatory wax lamid ah inaad u sameysid, ama waxaa loo yaqaano sida iliosacral screw wax lamid ah inaad ku xirtid, hadduusan u baahnayn qaybta kore ee binderka ah oo caloosha ku aadan, teamka general surgery-ga haddii ay laparotomy sameynayaan, meesha ku aadan keliya ay marada iska jeexayaan, meeshaas ayay ka shaqaysanayaan, inta kale wuu kugu xirnaanaa. Remember pelvic binderka ujeedkiisa waxay tahay number 1 in volumekii pelviska uu yareeyo, number 2 in uu yareeyo mobility ama movementkii fractured fragmentskii, number 3 haddii labadaas ay dhacdo waxaa helaysaa waxa ku fuudaanayo clot formationkii. haddii laakiin pelviskii ay lafihii dhaqdhaqaaqayaan ay wax celinayeen aysan jirin, bleedingkii xataa hadduu venus uu yahay ama endiga lafihii jajabay uu ka socdo marnaba ma istaagay. marka waxaa muhiima nafsada meequu ku xirnaan karaa, let's say bukaanka maanta ku xirtay resuscitation u sameynaysaa, ICU uu ku jiifaa, external maxaa lahaa fixation maadan u xirin oo saalamaadan u qaadin, 7 days waa kugu xirnaan karaa, waxaa ka cabsanaysa male. xataa waxaa la sameeyaa oo waxyaabaha lagu dheereeyo waxaa ka mid ah maxaa la dhahaa jilbaha ka kor iyo ankaliska ayaa sidoo kaleeto la isku xiraa si loo saacido, inkastoo standardka aysan ahayn oo standardka uu yahay levelka greater trocontal kale in lagu xiro. aad mahadsan doctor, kaaga mahad celinaya topica iyo su-aalaha sida wanaagsan uga jawaabtay, waana wax badan oo
oo qiimo badan oo cilmi wanaagsan aan isu gudbiso dhammaanteenba aad u mahadsantahay doctore. dhakhaatiirta sharafta leh wixii kale su-aalaha waa iin daaya adinka waa. Dr. Barre, waxaa jira su'aalo lagu soo gudbinayo dhanka text message marka bal fiiri qayb chatka. Mm. Dr. Saydow, su-aalaad messengerka lagu weydiiyey waa cabdiweli muumin jayte waa assistance orthopedic waaye. Dr. su-aasha ku qabo waxa waaye pelvic fracture patientiga ah 2 liitar oo blood ah la siiyo mise severity injury ayay ku xiran tahay, ma la sii karaa 2 liitar oo blood ah mise severity injury ayay ku xiran tahay? Su-aashaas jayte kusoo gudbistore. severity-ga ku xiran tahay. Limit ma jiro oo dhahayo 1 liitar iyo 2 liitar ha la siiyo. Cafwan slide-kii oo 2 liitar ay ku jirtay kama wadin bukaanka 2 liitar la siinaa. Waxaan ka wadaa bukaanka haddii initial resuscitationka asigoo hemodynamically unstable markuu imaaday la siiyey liitar ilaa 2 liitar oo fluid ah, 2 unit oo dhiigana la siiyey. 2 unit oo dhiiga waxay noqonayaan 1 liitar. 2 unit oo dhiiga unitkii average 400 ilaa 500 ah. 2 unit oo dhiigana la siiyey. Haddii uu response bixin waayo, maxaa ku xiga aan ka wada? Maxaa ku xiga stepskii oo algorithmka. Laakiin bukaankan ma 2 unit aa siinaa, ma 10 unit aa siinaa, ma 20 unit aa siinaa, how responsive uu yahay ay ku xiran tahay. Okay, waxaan rajeynaa su-aashaada in laga jawaabay. mahadsan tahay jayte. sidoo kale doctor waxaa kaloo ka hadashay mortality ka hadashay iyo waxaa ka hadashay sidoo kale multiple organ failure ka hadashay MOF iyo deathna ka hadashay. slide-kii ku jirtaan filaya gadaal haddaa u noqdeed. mortality-ga oo pelvic fracture-ka ah percentage-ka aa soo qaadatay imso waaye oo journaalka intaa akhrinaysa ku aragtay. MOF-kana asagana oo multiple organ damage-kana asagana percentage-ka intuu ka yahay. mid ma classification-ka marka raacayno Youngberger classification marka raacayno kuweebaas ugu badan oo death-ka percentage-ka ah sidoo kale ka ah mortality-giisana aan dhehe organ failure-kiisana keebaa ugu badan ku ah marka loo wada fiiriyo classification-ka AL iyo ABC iyo vertical sheet-ka markii laga hadlayo. qaybtii dambe anoo aad u fokas garaynaya qaybihii hore keli haddaan keli ilaaway sax raalli ahaw. Qodka ma ii fureen? Qodka waa ii fureen. Mortality editor waxay ku xiran tahay what type of injury iyo associated injuries. So bukaan stable pelvic fracture ah without associated injury, so mortality-giisa aaday u yar tahay. Overall mortality laakiin any pelvic fracture waxaa la dhahaa waa 2 to 18%. Studyada badankooda upper limit-ka overall mortality-ga markay ka hadlayaan waxay dhahaan less than 20% waaye overall. Laakiin mortality-ga waxay ku xiran tahay waxaa la dhahaa nooca fracture-ka iyo associated injuries-ka. waxaana ugu badan LC type 3, LC type 3 number 1, ABC type 3, vertical shear, saddexdaas ugu badan mortality-ga marka la dhaho. So mortality-ga saddexdoodaas wax badinayana waxay tahay ABC type 3-ga waa kan ugu badan ee vascular injury lala xiriiriyo. sidoo kale ABC type 3-ga waa kan ugu badan ee urological injury lala xiriiriyo. LC type 3-ga waa kan ugu badan ee lala xiriiriyo micnaha kan labaad ee ugu badan ee lala xiriiriyo abdominal injuries-ka, urologic injuries-ka, head injuries-ka, close head injury-ga. So mortality-ga kama imaanayso pelvic injury-ga kaliya, sidoo kale waxaa mortality-ga badinaya associated injuries-ka. So overall mortality waa sidaas, laakiin yaa ugu badan LC type 3, ABC type 3, vertical shear yaa ku xigo ABC type 2, LC type 2. maxaa badiyey mortality-gooda?
associated injurieska la xiriiro ha ahaadaan vascular ama extra pelvic organ injurieska ayaa badiyay. I don't remember exact datada multiple organ failure meeqee ka tahay, waa jeclaan lahaa asxaabta qofkii clarification ku sameynaya qaybtaas inuu ku daro, laakiin sepsis multiple organ failure formationkooda wuxuu ku xiran yahay maxaa la dhahaa highly unstable injurieska. So waxaan dhihi karnaa bukaanada u nugul in ay dhibaatooyinkaas ku dhacaan waa bukaanada leh maxaa la dhahaa interabdominal ama urologic extravasation oo urine oo pelviska bukaanka leh, urinkii inay pelvic cavity-ga gasho ama colonkii uu to damage dhaco, stoolkii uu intraperitoneal leakage wax lamida uu sameeyo iyo waxyaabo noocaas. bukaanadaas oo associated injuries kale waa kuwa develop waree karo infection iyo subsequent sepsis. bukaanada shooga, hypothermiada, thrombocytopeniada iyo coagulopathy-ga develop gareeyana due to not only bleeding-ka iyo shooga laakiin due to other associated injuries waa kuwa leh multiple organ failure. In terms of meeqa percentage runta haddaan ka sheega ma aqaan, waa jeclaa lahaa qofkii asxaabta xasuusta inuu ku daro. aad umahadsantahay doctor, shukran qolkiiba boqol kaaga mahad celinayaa explanationka wanaagsan ay nolola wadaagtay. hadday wax su-aal jirin waxaan jeclaan lahaa inaan soo gabagabeeyo, haddii su-aal jirtana waa in soo dhaweynaya dhakhaatiirta. doctor sayid waxaan malaynayaa wax su-aal inaysi jirin oo malaynaya oo soo gabagabeyno topican iyo topiyo badan oo wanaagsan insha allah waan rajeynayna mustaqbalka dhow. Doctor aad u mahadsan tahay, asxaabta kasoo qayb gashana aaday u mahadsan yihiin, aad u mahadsantihiin dhammaantiin. Doctor Cabdullaahi Yuusuf. shukran doctor, shukran cabdullaahi yuusuf. xogeyaha halo. waa mahadsantihiin xogayaha mihi waa madaxas iyo mihiga waaye. xogayaha waxaa noo editor salaad fidow, dr sayid, dr bare iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha aad baad u mahadsantihiin. boqolkiiba boqol waa idinkaga mahad celinaya waqtigiina, si gaara dr sayid oo waqtigiisa iyo cilmigiisa noo huray inuu nooga faa'iideeyo. jazaak allah dr sayid. waxaan rajeynaa insha allah kulamada dambe in si aadi loogu soo qaybgeli doono oo bilaha ah haddii alla idmo. marka kulligiin waa mahadsantihiin. shukran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.